Assalaamu calaykum. Muuqaalkani maanta waxaan isla fiirin doonaa screen recorderada ama barnaamijta ugu fiican ee lagu duubo moobilka shaashadiisa. Magacaygu waa Maxamed Maxamuud. Ku soo dhawaada Caaqil Taj. Haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelkan aadna danaynaysid teknoolajiyada iyo editinka, fadlan ha iloobin in aad saartid subscribe, gambaleelkana furo si aysan ku dhaafin muuqaaladeena xiga. Dhammaan barnaamijta aan maanta ka hadli doono ama applicationada aan ka hadli doono linkiyadooda waxaan idin soo dhigayaa xagga hoose ee description-ka. Marka ugu horeyso waxaan ka hadlaynaa abka loo yaqaano AZ Screen Recorder. Abkani waa kuwa ugu fiican ee loo isticmaalo in lagu duubo moobilka shaashadiisa. Waxaa ku cadaynayso in uu yahay abkani kuwa ugu fiican ee loo isticmaalo screen recorderka dadka faraha badan ee soo degsaday abkani. Waxay kor u sii dhaafayaan 10 milyan oo qofood. Haddii aan gudaha u sii galno abkani, wuxuu duubi karaa muuqaal tayadiisa aad u sareyso, kaasoo resolution-kiisa ama quality-giisa oo dhan yahay 1920 pixel. Waa rate aad u fiican oo lagu tilmaamo rate-kaasi inuu yahay Full HD. Bitrate-kiisa wuxuu gaari karaa ilaa 12 milyan per second. Iyo waxaa kaloo leeyahay frame rate aad u sareeya oo gaari kara ilaa 60 frame per second. Waxaad u isticmaali kartaa in aad ku duubtid gameska aad ciyaaraysid, sida asxaabta ciyaarta gameka PUBG-ga ama gameka Call of Duty ama wixii kaloo soo raaco. Intaan abkan fiirinayay gudihiisa aan ku dhex jiray, waxaan ku arkay laba waxyaabood oo aad ii soo jiidatay oo aadna muhiim u ah. Midka koowaad aan ku arkay waxay tahay wuxuu leeyahay video editor. Wow, cajiib. Waa meelaha oo ababka kale ugu duwan yahay ama barnaamijta kale. Video editing-ka gudihiisa waxyaabahan ku arkay waxaa ka mid ah in aad ku soo darsan kartid videogaaga waxyaabaha loo yaqaan stickerska ama text oo ziyaada oo wax aad ku sharxaysid in aad ku soo darsan kartid, in aad videogaaga crop ku sameyn kartid iyo waxyaabo fara badan. Midda labaad aan ku arkay waxay tahay wuxuu leeyahay ama ku ogolaan karaa in aad soo gashid live stream-ka sida Facebook-ga iyo YouTube-ka oo kale, adigoo moobilkaaga shaashadiisa dadka u soo bandhigaya. Macnaha wax ayaad ugu sharxi kartaa adigoo moobilkaaga shaashadiisa aad dadka tusayo. Abka labaad maanta aan ugu hadli doono waa waxaa loo yaqaanaa screen recorder oo kali, balse waxaan idin tusayaa loogada saaran. Wuxuu leeyahay looga noocan oo kala. Abkani wuxuu duubi karaa muuqaal quality-giisa aad u sareeyo sida AZ oo kale. Resolution-kiisa wuxuu gaarayaa 1920 pixel, taasoo macnaheedu ay tahay in uu duubi karo video Full HD ah. Bitrate-kiisa wuxuu gaarayaa 12 milyan bit per second. Iyo wuxuu kaloo leeyahay frame rate aad u sareeyo oo gaaraya 60 frame per second, taasoo macnaheedu ay tahay in aad u isticmaali kartid gameska iyo waxyaabaha speedka badan ee lagu duubo screen recorderada. Abkani wuxuu ugu duwan yahay AZ. Wuxuu leeyahay qayb duubta codka oo kaliya. Macnaha waxaad duubi kartaa oo kaliya codka adigoo video aadan duubeynin. Barnaamijkani wuxuu leeyahay laba waxyaabood oo aad ii soo jiiteen. Midda koowaad wuxuu leeyahay abkani sida AZ oo kale meel aad ka soo geli kartid live stream-ka sida Facebook-ga iyo YouTube-ka. Midda labaad, abkani wuxuu leeyahay whiteboard ama sabuurad cad. Waxaad rabtid aad ku qoran kartid ama dadka aad ugu sharxi kartid waxyaabaha aad sheegaysid. Haddii aad ka heshay muuqaalkani, fadlan like saar, subscribe-na dheh channelkeena, la wadaag asxaabtaada kale muuqaalkani. Mahadsanid.